بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kastaa joogtaan kusoo dhawaada janalka waa janaalkiini waa janalka walaashiin isku filan soomaali maanta iyo fiideo cusub maasha allah tabaaraka allah. walaalaha cusub waa soo dhaweynaa walaalihii hore inuu joogan waxaan leeyahay beedbeedkum martimatihiin maasha allah like noo saara subscribe saara fiideogana share gareeya adigoo mahadsan maasha allah tabaaraka allah. backgroundigaan tusay waxaan soo qaatay baaquligaas maasha allah afar xabo oo kun aan hore banaanka usoo dhigay oo kululaatay oo firinjeerka aan hore uga soo bixiyey waaye. waxaan kaloo ku daray hal bakeeri oo sokor ah macaankan aday kugu xirantahay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo walaalahay. daawasho waxaan tashjiicna ma jiro, daawasho ma jirto, fiyuusna ma jiro. waxaan idinku codsanaa fideogay hadduu idin soo gaaro walaalahay insha allah like inaa ii saartaan inaa ii share garaysaan fideoga adikoo mahadsan. markay ukunta ii soo cadaata insha allah oo maaragta ay wide noqoto waxyaabaha kale ku dari doono waa isla arki doonaa ila jooga insha allah. daawasho waxaan maasha allah kuntii markaan saas usoo qasay ee cadaatay creamkaas camal noqotay. haddana waxaan ku daraaya hal bakeeri oo tumi dhiman oo saliid ah insha allah. haddana waa isku qasaaya kadibna waxaan ku dari doonaa waxyaabaha kale oo noo dhiman insha allah. maasha allah kunteeni waa noo diyaar iyo sokortii iyo saliidii maasha allah. haddana waxaan soo qaatay shabaqaas oo shaqshaqaan soo qaatay ukunta korkeedaan saaray laba bakeeri oo laba macalka dhiman oo ma jirin koobka wax lagu cabiro ah oo bur ahaan meesha ku riday hore mar horaan soo shaqshaqay one time more haddana rabaa inaan shaqshaqo insha allah. saa ogtiin keega in haddii hawo ay gasho oo burka maaragta meesha shaqan yahay keegaada wuxuu noqonayaa soft oo naacim uu kuu noqonayaa keeg jileec ah maasha allah. waxaan kaloo ku daray labada bakeeri laba macalka dhimanay ahayd laba qaando oo waxaan ku daray oo kaakaowga budada ah shukulaatada budada ah aan booskiisa ku daray maasha allah. qiyaastan waa qiyaas oo masbuud ah waaye oo iskeenaysa insha allah. saanada u qasatid walaashay daawanayso insha allah ka faa'iideyso. waxaan kaloo ku daray hal qaando oo baking powder ah ku daray insha allah. intaasaan isku qasaaya kadibna waxaan ku dari doonaa waa isla arki doonaa. daawasho wacan insha allah. haddana waxaan ku daray caano yaro daafi warm ah amba qandac ah oo hal bakeeri oo maaragtay oo tumi dhiman oo caano ahaan ku daray maasha allah tabaaraka allah. intaasaan isku qasaaya haddaa haysatidna heylaa ku darsan kartaa after caanaha haddii kalena faniiliya haa ku darsan karta insha allah. adiga ay dacam yacni nagha aa jeceshahay oo rabti keekaada maaragtay inuu teestigaas yeesho hadduu ilaah yiraahdo isticmaali karta. aniga laakiin waxaan isticmaali doonaa insha allah faniiliyada oo sokorta ah hadduu ilaah yiraahdo. foornadan waa sii shitay maasha allah tabaaraka allah. saxanaan rabaa inaan saaro maaragtay warqadan saari doona insha allah soo keega iiga dhigin saxankaasaan ku shubaaya ofinkaan gelinaya keegaan 5 daqiiqo soo bilslaana maasha allah because khafiif waaye ma ahan yacni flat saxan oo balaaran ku sameeyey ma ku sameynay kuwii maaragtay oo keeg isu keenayay oo like almost kuwaas kale waxay qaadanayeen 25 minutes kan laakiin hadda wuxuu qaadanaa 15 minutes oo 12 minutes keeg wuxuu noqon doonaa insha allah ready insha allah. daawasho wacan.
maasha allah the same level aan ka dhigay macalkadaasaan u qaatay waa isla simaaya maadaama suuna u noqon meel buuran iyo meel maaragta khafiif ah keega insha allah. I try my best inuu the same u noqdo level macalkadaasaan u qaato waa isla simay. haddana miiskan ku qarqaraaci doona hawada ku jirta si uga baxdo hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna waxaan gelinayaa foornada. maasha allah tabaarakallah almost 12 minute keegeeni waa noo diyaar. maasha allah tabaarakallah keeg soft ah laakiin khafiifna ah. maasha allah tabaarakallah oo haddii maaragtay aadna ka taxadirin wuu kaa jabi karaa markii oo aadna khafiif mu aha laakiin yani khafiif le waaye oo siyaado ah maahan laakiin you have to be careful like markaa meesha ka bixinaysid waa inaa maaragtay si tartiib ah u soo bixisid haddii kale hore u ka jabaayaan ku dhahay. keega hadda aan sameeyey marka maasha allah markuu qaboobay warqadii aan maaragtay ovenka la geliyey waa gediyey keegii warqadii waa ka fujiyey waxaan ka dhigayaa 2 nus kadibna creamkii aan bilaabi doonaa hadduu ilaahay. haddana maasha allah baaquligaasaan soo qaatay. baaquligan waxaa la rabaa baaquli engegan inuu yahay baaquli oo biyo kuleel kusoo dhaqdana lama rabo biyo qabow oo kaleetaa ku dhaqaysa haddaan hore usii diyaarin. haddaad maaragtay wadarka ay gurigaada ay kulushahay hawadane oo yacni oo temperaturekiina wadankii ay joogtid ay kulushahay waxaa sameynaysaa frinjeerka gelinaysaa creamka frinjeerka kasoo bixinay whipping creamka. maasha allah tabaarakallah hadda waxaan ku shubtay 2 bakeeri iyo nus. waxaan kaloo ku shubay nus sokorta maaragtay icing sugar aan ku shubay oo sokorta shiidan ah haddaa rabtidna adiga waa shiidan kartaa. marka maasha allah tabaarakallah waa boobsiinooya videoga because almost videogan wuxuu ahaa 35 minute u ahaa mise 37 marka waa soo jarjaray hadda intaana ka reebay qaar boobsiisaan ka dhigay. maasha allah tabaarakallah markaan maaragtay creamkii aan soo qasay oo sokorta ku daray uu maaragtay saan rabay uu ii noqday keegiyaan keenay keegiyaan mariyey. maasha allah macalkadaas lay u qaatay insha allah. haddaa rabtidna maaragtay caagadaha lagu mariyo haysatid waa ku mari kartaa laakiin waxay ani iska simple waaye. macalkadaasaan qaatay macalkadaasaan ku mariyey. haddaa rabtidna waxaa ku shubi kartaa bacdaasaan maaragtay aad kula shubi kartaa creamka. kadibna waxaan ku dhahay keega kaleeta markaan korka ka saaraayo waa inaa maaragtay ku riixdaa suu maaragtay isku qabsado insha allah. kadibna waxaan haddana marinayaa creamkii meesha kore kadibna desaynka aday kugu xiranta waxaa rabtid aa korka ka marin kartaa. haddaa rabtid loos shiidan haddaa rabtid qumbo oo maaragtay aad soo dubtay oo maarkin aad birta dabka saaraysaa qumbaha ku shubaysaa. waxaan ku dhahay waa maanta dhan waa walaaqaysaa markuu brown noqdo soo qumbo oo diyaar oo brown uu noqonaa oo isticmaali kartaa. haddaa rabtidna keega nuska goosanaysaa geesaha ka goosaa jajabinaya ku kor shubaysaa anything haddaa rabtid caramel isticmaali kartaa optional le waaye yacni waxa adiga aad rabtid aad use garayn kartaa hadduu ilaahay yiraahdo. haddaa rabtid even fruit waa isticmaali kartaa is up to you. marka maasha allah tabaarakallah leebel aan ka dhigay mididaasaan haddana u qaatay maadaama aad korka wax ka marinaysid ma u baahnid laakiin inuu maaragta u noqdo 100% marka isla ekaysiisid oo enough cream aad marisid waxaa rabtid aad korka uga shubi kartaa because waaba qarinaysaa maha almost. marka maasha allah tabaarakallah keegana saas diyaar noogu yahay. waxaa rabtid saan hore usoo sheegay korka ka marin kartaa qumbo intaa soo dubtid oo keega geesihiisa. maasha allah tabaarakallah waxaa rabtid ku samee waa fartaa rabtid ku qor waaye almuhiim keegaada inuu soft noqdo oo whipping creamkaadana sokor badan lahaanin fiican because haddii kaleetana is too much sokor lagu daray noqonay. markaad aniga keega sokortaan ku daray bakeeri ah kana waxaan ku daray nus bakeeri oo maaragtay icing sugarkaan ku daray. marka maasha allah tabaarakallah keegana saasuu diyaar noogu yahay. hadda habeenay ii tahay markaan hadda aan samaynayo so next day oo kaleeto aa la cunaaya hadduu ilaahay yiraahdo. ilaahay noo daaweeyo maasha allah tabaarakallah. maasha allah keegan uu kusoo baxay waa kaasaa walaalahay sidaani markalaan ku gurmayna video cusub waxaan idinkaaga tagayaa fii amaanillaah. asalaamu calaykum.